sidii balantu ku qotantay waxa saakiirtii la iska xaadiriyay howlkii loo astay inuu ka furmo shirweynihii koobaad ee golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka wadani kaasi oo ka furmay hoteelka Mansour ee magaalada Hargeysa waxaana kulankan wadajir uga qayb galay xubno ka mid hoggaanka ugu sareeya xisbiga mucaaradka wadani xubnaha golaha dhexe iyo sidoo kale taageerayaal tiro badan oo dhamaantood duganaya dhawaqa koobaad ee shirka dhankooda waxa kulanka qayb ka ahaa xubno kala matalay xisbiyada u ciidiya kulmiye oo tartan xoogan ka dhaxeeyo isla xisbigan wadani oo goobjoog ku ahaa munaasabada ismarkaana lagu soo casuumay barbilan waxa shirkada afuray ismarkaana halka ka hadlay xogeyaha warfaafinta xisbiga mucaaradka wadani Cabdirashiid Xasan Mataan gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga wadani Ismaan Afkaab howlkan Mansour oo shirkii golaha dhexe ahna shirkii koobaad ee golaha dhexe ee xisbiga wadani dhankooda waxa hadalka lagu soo dhaweeyay xubno kala matalay xisbiyada u ciidiya sidoo kale kulmiye Xasan Gaafadhi afayeenka guud ee xisbiga kulmiye iyo Cabdinaasir Yuusuf Qodax xogeeye ku xigeenka xisbiga mucaaradka u ciid waxaanay baarigaan isla kulankan anagu waxaanu ku nimid martiqaad idinku noo fidiseen aad iyo aad baanu idinku mahadnaqayaa martiqaadka shirkii golihii dhexe koowaad aad qabsataan oo si qurux badan u qabsataan oo ku furmo aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad bay ku mahadnaqaynaa waxa intaa kadib iyaguna dhankooda goobta hadallo kala duwan ka jeediyay xubno kala matalay horjoogayaasha xisbiga wadani ee gobolada dalka iyo sidoo kale kuwa ka soo kala kaytimay qaaradaha kala duwan ee caalamka waxaanay dhammaantood si weyn u fogaadiyeen qarsoomidda shirkii koobaad ee taariikhda abid xisbigan uu ku qabsado gudaha Hargeysa waxaa sidoo kale dhankooda goobtan ka hadlay Maxamed Biixi Yoonis wasiirka hore wasaaradda arrimaha dibadda iyo Xirsi Cali Xaaji Xasan wasiirka hore madaxtooyada dawlad aanu isleenahay maanta cadaalad ballaaran bay ummadda u soo jeedinaysaa ayaa wadani barnaamijkoodii ku soo jeediyey siyaasadda nimaan himo lahayn waxa weeye been isku akhriyey hilaalkiisu dhow yahay oo kursiga u hamuun qaba himiladiisu keen tahay oo shilinka un ka halabsada hadafkiisu qolo yahay oo hayb u kala gura oo lagu hubtay baa dilay hayb u kala gura oo lagu hubtay baa dilay waxaan leeyahay ninkii sharaxane doonaya inuu kursiga tago adigaan oo dhan reer hebel iyo reer hebel dooranaya hebel iyo hebel baa ii xidhan ninkii baanaaya lagu fasax badka soo dhig waxaad aaminsan tahay halka aad hayaanka bulshada geynayso badka soo dhig Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ero gudoomiyaha xisbiga wadani ahna gudoomiyaha aqalka wakiilada iyo xildhibaan Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde oo mudane ka tirsan aqalka baarlamaanka xilligana loo qorsheynay inuu noqdo gudoomiyaha xisbiga wadani ayaa iyaguna dhankooda goobta ka hadlay waxa ku soo kordhinaya waxa qabadkii wadani waxa qabadkii udub oo nimanka la soo qaadin oo xubinka ahaa waxaan sheegayaa waa isu dhiib dowladda u dhiibtaa aana maalay waxay ballan qaadaysaa inay si aan hakad iyo hagrasho lahayn u qaban doonto doorashooyinka golayaasha dalka iyo kuwa madaxweynaha xilligooda oo go'an muddo kordhinta bajiri muddo baasha muddo kordhinta la yidhaahdo dib inoogu soo noqon mayso waxaan ummadda u ballan qaadaynaa inaan baabi'in doono dhaqanka muddo kororsiga ee cambaarta ku noqday dimuqraadiyadda Somaliland waxaan dhiirigelin doonaa si firfircoon saxaafaddu inay ka qaadato doorashooyinka iyo wacyigelinta dadka annagoo ballan qaadayna inaanu ilaalinno xorriyaadka aasaasiga ee dastuurkiina siiyey waxaan idiin sheegayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland marar badan baanu la kulannay waa ka go'an in doorashadii la qabto haddana waxunbaa si ah oo maxaa si ah waxaan isleeyahay waxaa si ah kulmiye
waxaa ka warqabtaan diiwaangelintu intay socotay intaasoo jeer baa la isku dayay in la joojiyo la hakiyo mararna wuxuu ku guulaystay kulmiye inuu diiwaangelinta hakiyo shirkan ayaa noqonaya kii koobaad ee taariikhda abid u qabsada xisbigan mucaaradka wadani oo jiritaankiisu keliya xilligan ku eegtay muddo ku siman 5 sano islamarkaana xisbiga ugu da'da yar xisbiyada xilligan ka jira Somaliland waxaana markii ugu horeysay xilligan isku diyaarinaya inuu ka qayb galo doorashooyinka madaxtinimada iyo sidoo kale aqalka baarlamaanka waxaana la filayaa in maalinta sabtida foodeyn ugu soo hayso oo noqonaysa maalinta saddexaad ee isla shirkan in lagu doorto xubnaha calansidayaasha u noqon doona xisbiga mucaaradka wadani ee uga qayb gali doona doorashooyinka madaxtinimo ee dalka. Faysal Maxamed Aadan Faysal Fifa TV-ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa.